Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa saakay waxay dil toogasho ay ku fuliyeen 5 nin oo ay sheegeen inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab kuwaasi oo horey magaalada Kismaayo uga geystay dilal kala duwan. 5 nin ee maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ku fulisay dilka toogashada ayaa waxay kala hayeen Maxamed Cabdullaahi Abuukar Deero, Cismaan Maxamed Mursal, Maxamed Ibraahim Cali, Ilyas Maxamed Xasan iyo Ugaas Aadan Maxamed Geedi. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa waxay sheegtay in Maxamed Cabdullaahi Abuukar Deero iyo Cismaan Maxamed Mursal horey ay u dileen marxuum Allah u naxariistay Maxamuud Sheekh Cumar Maxamed Daahir, halka Maxamed Ibraahim Cali iyo Ilyas Maxamed Xasan ayaguna maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ay sheegtay inay si wadajir ah u fuliyeen Allah u naxariistay dilkii marxuum Sheekh Cabdullaahi Dalaba. Sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegtay in Ugaas Aadan Maxamed Geedi uu horey maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dil toogasho ugu xukuntay kaasi oo magaalada Kismaayo iyo aageeda ka geystay qaraxyo iyo dilal qorsheysan. Waxaana xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland gaashaanle dhexe Ismaaciil Cabdi Cali ayaa warbaahinta faahfaahin ugu bixiyay xukunka dilka ee maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida Jubbaland ay fulisay.